xafiiska xeer ilaalinta ciidanka booliiska iyo maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa waxay soo qabteen qamri ay ku jireen karaatoono isla markaana gebi ahaanba waa ay burburiyeen qamrigan oo tiradiisa lagu sheegay 886 litir oo qamri ah. qamrigan oo la sheegay in lagu soo qabtay 4 ruux, 2 kamid ah ay rag ahaayeen halka 2 kalena ay dumar ahaayeen. ugu horeyntiiba waxaa goobta qamrigan lagu burburinayay ka hadlay taliyaha qaybta bari ee ciidanka booliiska Somaliland Cabdi Cali Xayd iyo hoggaanka ciidamada ee dhinaca dambi baarista Faysal Xiis, iyagoona ka warbixiyay tirada qamrigan la qabtay iyo waliba inta maandoori ee lagu qabtay magaalooyinka waaweyn markii uu taliyaha cusub uu xilka la wareegay. waxayna yiraahdeen halkan u taagannahay ciidanka booliiska, maxkamadaha, xeer ilaalinta inaanu maanta halkan ku burburino maandooriyo tirsigiisu dhan yahay 886 iyo nus litir khamriga loo yaqaan noociisa dry gin-ka kaasoo inooga soo gudbay dalka Ethiopia. khamrigaasi waxa lagu sameeyay mataqaanaa dhalan rog, waxa laga sameeyay qaarkood waxa laga dhigay maawsixa laga soo dhigay maawsixii baa la soo sameeyay, bacdii baa lagu soo sameeyay, furkii baa lagu soo sameeyay isagoo loo soo ekeysiyay in ay yihiin biyihii maawsixay dadku cabi jiray. khamrigaasi waxa kaloo jira jirikaamo lagu soo guray iyo qaar quruurada ku jira oo mataqaanaa saddexdaan nooc ayuu isugu jiraa maandooriyahani. waxaana la doonayay ummadda islaamka ee jamhuuriyadda Somaliland in lagu khaldo lagu baabiyo. waxaanu ummadda Soomaaliyeed uga digaynaa in ay mataqaanaa ka waantoobaan ka ganacsiga khamriga maadaama aynu nahay dad islaam ah. anagoo fulinayna amarka taliyaha ciidanka booliiska Sare Guuto Maxamed Aadan Saqli wuxuu awaamir adag ka soo saaray in si adag loola dagaalamo mukhaadaraadka, haddii noqoto khamri, haddii noqoto xashiishad. wuxuu bixiyay amar afa, wuxuu bixiyay mid qoraal ah oo wuxuu ku faafiyay dhammaan gobolada dalka oo dhan. intoo la kaliya maaha, haddaad eegto Wajaale, haddaad eegto Gabiley, Laascaanood, Burco, booliisku waxay qabteen mukhaadaraadkaasoo kale. weliba taliyahan waxaa u dheer ciidanka booliiska inuu abaalmarin siinayo hadday noqoto dadweyne iyo hadday noqoto ciidan booliisba oo qaar badan buu siiyay. kuwa khamriga soo qabtay abaalmarin oo aad u fara badan buu siiyay isagoo ku dhiirigelinaya in waxa ay wax ka badan la soo qabto. sidoo kale isna waxaa goobta ka hadlay garyaqaan Cabdisalaan oo ah garyaqaankii xukumay 40 qof ee lagu soo qabtay qamrigan, ayaa sheegay sida loo soo qabtay iyo waliba waxa lagu xukumay. waxaanu yiri iyo xafiiska xiraantuna ay abaalkoodii mariyeen xukunsanayaashii khamriga waday ee lagu qabtay, iyadoo maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku xukuntay xukunsanayaasha min 4 sano oo xariiq ciqaabeeda iyo 5 milyan oo ganaax maaliyadeeda. waxa kaloo maxkamaddu ganaaxday gaarigii Land Cruiser-ka ee xukunsanayaashu khamriga ku sideen, gaarigaasoo lagu ganaaxay qiimihiisa 5%. waxa kaloo maxkamaddu ganaax digniin afka ah siisay gurigii khamriga laga soo helay oo isaguna digniin la siiyay afka ah mulkiilaha guriga si uga waantoobo. waxaan halkan uga mahadnaqnaa ciidanka bilayska oo had iyo jeer ku daba taagan dambiilayaasha doonaya inay dalka magaranayay dambiyada mukhaadaraadka. ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex Cabdi Qoodan Cabdi ayaa isna ka hadlay. waxa uu yiri wax galoo jira way aragnimada iyo shaqadan waxayna bartay dambiyada dhacaya ay tuugadu ugu yartahay ilaa dilka dadka geysta 90% inay yihiin dadka daroogada isticmaala. marka uu keenayo sababaha iyo xumaanta iyo fawaaxishka khamrigu tirada inta laga soo geliso waxa weeyaan waa disaster.